aaminaada qofka waxa uu iska aaminsan yahay waxa ay dhistaa oo go'aamisaa filashooyinkiisa. qof kastoo bini aadam ah oo aamina nafsadiisa wuxuu xaqiijin karaa hadafyadiisa. isweydii, maxaad ka aaminsan tahay naftaada? nafsadaada ma waxaad ka aaminsan tahay mid liidata oo aan awood lahayn, karti iyo waxqabad lahayn, mise waxaad ka aaminsan tahay nafsad qawi oo xooggan oo aan liidanin? haddaba adiga ayaa garan kara waxaad naftaada ka aaminsan tahay. You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You are capable of anything. You can achieve any dream. Please don't limit ogowna yourself. aaminaada nafta waxa aad ka aaminsan tahay unbaad ku salaysan tahay. dadkuna waxa aad naftaada ka aaminto unbay kaa aamini doonaan. waxaa jirta xigmad odhanaysa qofkii yeesho himilo cad oo ay ku dheehan tahay ruux sare iyo doonis adag, laakiin ruuxaasi aamini waayo inuu awood u leeyahay xaqiijinta himiladaasi, weligii xaqiijin maayo. sidoo kale Dr. Ibrahim Al-Fiqi isagoo ka hadlay aaminaada nafta wuxuu yidhi, rumaynta adagi waxa ay taageero u tahay doonista adag. naftaada haddii si dhab aad u aaminto, cidna kaama hor istaagi karto ka dhabaynta riyooyinkaaga. keliya ka adkow inaad aaminto naftaada. awoodda saraysa, awoodda kalsoonida, awoodda lahaanshaha, awoodda badqabka naftaada, awood kasta waxa ay timaadaa kadib markaad aaminto naftaada. ugu dambayn, naftaada oo aad aaminto waxa ay dhashaa inaad noqotid shakhsi karti badan oo ku kalsoon naftiisa.